wasaaradda warfaafinta wacyigelinta dhaqanka jamhuuriyadda Somaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland madaxda labada wasaaradood ee warfaafinta iyo wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka agaasimaha maamul wanaagga qaranka jamhuuriyadda Somaliland dhammaan howlwadeennada labada wasaaradood السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته runtii sharaf iyo farxad ay caaway tahay inaan ka soo qayb galo munaasabada caweyska wadaniyada oo barnaamij ahaan looga faa'iideystay bimunaasabati 26 Juun 4 guuradii ka soo wareegtay 26 Juun 1960 oo runtii caawa aynu ku qabanay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland wasaaradda warfaafintu way jirtay intii qaranka jamhuuriyadda Somaliland la aasaasay intaana way shaqeynaysay laakiin in barnaamijyo qaranku leeyahay runtii lagu qabto oo wasaaradaha iyo qarankuba uga faa'iideystaan bilicda iyo barxadan sida bilan loo bilay runtii waxaan uga mahad celinaynaa waa curintii iyo hirgelintii wasiir Cali Mareexaan qofkana waxa laga qiyaasaa mas'uuliyadda meesha uu yimaaday waxa uu ka qabtay marka uu yimaado bahbah iyo hadal iyo taariikh jirin iyo dad baa meelaha wax ka sheega in meeshuu joogay hagaajin kari waayay wax allaaliya wuxuu qaban karaa runtii ma jirto hadal iyo tarorog badan runtii looma baahna qofku meeshuu joogay muxuu ka qabtay muxuu kaga tagay ayaa runtii aad iyo aad runtii in loo xuso u baahan wasiirkuna haduuna helin howlwadeeno wanaagsan oo runtii hawsha la garab gala may suurto gasheen marka si wadara ayaa hawshan u hirgashay markii uu aragtida isagu la yimiday wasiir ku-xigeenka ka soo horeeyay iyo intii wasiirka dabadiiba timiday iyo howlwadeennadii wasaaradda ee taariikhda dheer ku lahaa haday tahay gabdho iyo wiilalba si gaaraan iyagana runtii u taaniyadeynaya waana lagu soo noqon doonaa hadii Ilaahay raado halka barnaamijyo badan baa lagu qaban doonaa waatii xayaad tiri cashuurna waa qaadi doonaa cashuur wax ka badan baa la inisiin doonaa hadii Ilaahay raado oo runtii hawl waxay ku timid arintani haddaan wasiirka la garab gelin bal dhawtaan ka fikirayo laha war bal wasiirku ha soo xulo dadku ugu madnaayee bal hawshan la qabtay si gaadiid ba xataa loo guddoonsiyo hadii ma ogta marka aad iyo aad ban mudana wasiir kaaga mahad celinaynaa waxaan runtii inta u xusaya qofkan dadka u mahadnaqin Ilaahayna uma mahadnaqo marka in taasaynu qarahaana wax ku gaadhaynaa hadii qofkii wax qabtay la qariyo oo xamalatu ducaaya meelaha laga sheego runtii noqon mayno ma jirta qofkuna hadduu qariyo mas'uulkii qofka walaalkii wuxuu qabtay tiisa la qariya waa qaacido jirta weey haddaad qiri weydo qofku wuxuu qabtay adigana cid ku sheegi mayso marka waa in la qiro qofku wuxuu qabtay ha kala masuugin waana in lagu daydo annagu wasaaradda runtii waxay leedahay xarun weyn oo barashada wadaniyada iyo dastuurka ah oo wasaaraddu ay leedahay oo hoteelkii weynaa ee xaraf taqaaneen waxa way muddo dheerba wasaaraddu halka 6 sano u dambeysay ay ku shaqeynaysay waa meelaha u baxan caawa la sheegay tiradooda iyo inta wasaaradduba ay ku tabacday ay ka soo bixeen runtii marka runtii caawa qiimo gaar ah anaga wasaarad ahaan ay arintani noo leedahay in caweyskii wadaniyada wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku ay caawa ka qabsoomayso wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Somaliland wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka qaranka jamhuuriyadda Somaliland markii qarannimadeena aynu la soo noqonnay 1991 dawladnimadeennii iyo madaxweynaheennii u horeeyayna lagu doortay magaala madaxda gobolka Awdal ee Boorama
waxaa la aasaasay wasaaraddan 1995 muddadaana waxay ahayd ilaa 2017 ilaa 1993 wasaaradda xidhiidhka golayaasha oo kale hatay ahayd arrimaha dastuurka wasaaradda waxaa ku soo daray oo digreeto madaxweyne markii wasiir maxamed xaaji aadam la magacaabay ugu soo daray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo runtii curintaa iyo hirgelintaaba iska lahaa mandatekeegu wuxuu ahaa xidhiidhinta saddexda gole wixii xeerar ay curiso xukuumaddu inay u gudbiso wixii golayaasha ka soo baxa wixii dhacaa khilaafaad iyo isku soo jiid iyo dhexdhexaadin waxyaalaadkaas oo dhan ay wasaaraddu u xil saarnayd laakiin muddada 6 sano ah ama 7 sanaba hadda ah waxaa ku soo daray in qeybtan dastuurka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo runtii u arkay in baahi weyn loo qabo in bulshada jamhuuriyadda somalilan fahan dheeraada iyo barashadiisa iyo ahmiyadda wadaniyadda ubaxa jamhuuriyadda somalilan ay tacliin ahaan u yeeshaan taasina ugu soo daray in wasaaradda kale haata ay israaci karaan ay tahay wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka muddada dheer ee ay raacsanayd qeybta dastuurku sida agaasimuhuba sheegay waxaa runtii ka soo baxay dad fara badan oo gobollada dalka ah oo runtii ka faa'iiday aqoon dheerna u yeeshay dastuurka jamhuuriyadda somalilan fahamkiisa guud iyo qodobadiisa uu ku aasaasan yahay iyo xeerasha ka farcama dastuurka ee golayaasha xeer dejintu ay ansixiyeen taasna runtii muddadaa dheer oo ahayd wasiir maxamed xaaji aadam wasiirka ugu cumriga dheeraa inta xukuumaddan ay jirto wasiirkii soo maray wasaaradda agaasime ahaana deeqa ay ahayd agaasimihii ugu wakhtiga dheeraa ee barnaamijkaasi u ahaa saldhigga hirgelintiisa iyo taabagelintiisaba runtii iyaguna ay taariikh gaara ay runtii ku leeyihiin markaa in barnaamijkaasi lasii tayeeyo mooyaane inuu maanta halkaa uu joogo dib uga noqdaana mid suurtoobaysa ma aha wasaaradduna runtii intii ay jirtay dastuurka lagu soo daray waxaa runtii xeer gaara loo sameeyey qeybta wadaniyadda iyo dastuurka oo agaasime cabdirasaaq uu ka yahay agaasime aniguna markaan u imiday aan u arkay qofka keli hatee hawshaasi sii wadi karaayey inuu isaga yahay oo runtii aniguna aan u siiyey inaan runtii gacanta u sii daayo isaguna uu yahay nin firfircoon oo runtii aragtidiisa iyo aad ay u dheer tahay runtii oo shaqaaluunan ahayne bal aan odhan karo inuu yahay nin siyaasi ah oo runtii soo socda wasiirkaa runtii taataabtay taariikhda dheer 26 juun iyo waxaynu ka dhaxalnay iyo wixii ay ahayd ahmiyaddeeduba waxaan runtii dul istaagayaa xasan sheekh maxamuud oo maanta hadlay oo ka hadlay heshiiska isfaham ee jamhuuriyadda somalilan iyo dalka etoobiya oo aad ogtihiin bishii koowaad kowdeedii 2024 in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ay ku wada gaadheen dalka etoobiya 6 bilood ee heshiiskaasi uu joogay ama uu jiray xasan sheekh maxamuud jiif iyo joogba u diiday wuu miyir beelay diyaaraduu ka degi waayey waanigi maalin hore yidhi aakhirka diyaarad baa la dhici doontaa la dhis kolba siduu diyaaradu u saaran yahay meel walba way la martay wax kasta oo ku hadlay maanta wuxuu yidhi waxa dee horta qofku waa inuu isdhegaysto qofku markuu hogaamiye yahayna ee una aragti lahaynuuna meel la u socon usbuuc baa hadal buu ku hadlaa nigaasi wuxuu yidhi maalintii heshiiskaasaynu gaadhnay dowladda etoobiya iyo shabaab way noo siman tahay buuhi maantana wuxuu ku leeyahay walaalahayo annaga wax walba u hayna kaasoo hogaamiye dal lagu tilmaami karaa qofku waxa uu leeyahay waa inaad maskaxda soo marinayso waa inaad runtii aada iyo aada uga fiirsato waana wax runtii lagu qoslo
meeshaana madaxweyne aragtidii kolba ma yimaadee nin boorso lacago carabta laga soo qaaday unbaa kolba la saaraa waana ta keenaysa inuu qofku bila aragti noqdo waxaanu leenahay heshiiskan iska ilow samiriyey baan allah kaa siiyo dalkani u dhaqaaqay dalkana waa la ictiraafayaa garhkuun iska xiir oo runtii sidaadii hore 6 bilood heshiiskaasi jiro odaygaasi uu diiday inuu ra'iis tago marka waxaanu leenahay habee xaajiga samiriyey baan allah kaa siiyo si aad marka qaranka la ictiraafo adoo wanaagsan aad u daawato insha allahu tacaala mar labaad waxaan hambalyeynayaa wasaaradda warfaafinta oo leeyahay mustaqbal wanaagsan baan howlwadeennada wasaaradda u rajaynayaa waxaad noo hagaajiseen meel wanaagsan oo arrimaha qaranka lagaga hadlo wasiirka hadda ay tusayay meel cajaa'ib loo wasiir sacad lagu waraystay oonu islahaa halkan ma New York ba wasiirka ku xigaan ahaa ku wada wasiir saddexaad meesha inuu imaniri wasiirka waa ka ballanay arrintaas marka wasaaradda runtii aad iyo aad baan iyo hablaha quruxda badan ee qaarkood habla wari yihiinba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.